xaaladdu cirka ayay isku sii shareeraysaa. Dowladda Itoobiya waxay qaadaysaa tallaabooyin aad u culculus oo ay ku doonayso in ay ku qabsato dekedda Saylac ama deegaanada waqooyiga Soomaaliya. Guud ahaan Itoobiya laga dareemayaa deegaanada gobolka Awdal ciidamo aad u tiro badan ayaa xuduudkaasi jooga oo kala duwan sida liyu booliska Soomaalida iyo militariga dalka Itoobiya oo aad u tiro badan oo fariisimo waaweyn ku leh deegaanada xuduudkaasi dhaca. Sidoo kale dowladda Itoobiya waxay bilowday dhismaha laami weyn oo isku xidhaya tog wajaale ilaa magaalada Jigjiga oo laga dhigayo laamiyaasha waaweyn ee casriga ah ee saddex geesoodka. Itoobiya waxaad moodaa inay hadda doonayso in ay badda cas ilaa caasimadaha sida Addis Ababa iyo Jigjiga inay noqdaan dhul Itoobiya oo waddo waaweyn horway laga dhisayo. Xaaladda Itoobiya aad bay u adag tahay, laakiin korneylku tallaabooyinku qaadayo waa mid aan la dhayalsan karin. Soo dhawow gooniyow seed u aragtaa in ay Itoobiya ay sheegtay inay ciidamadoodu ay buux dhaafiyeen xuduudka gobolka Awdal amar sugayaal ay yihiin saacad kastana ay maartay tallaabo qaadi karaan meesha dowladda Soomaaliya aan meel lagu sheegi karin. Soo dhawow gooniyow sidoo ma san tahay horta dowladda Soomaaliya meel lagu sheegi karo lama dhigi karo. Dowladdu way joogtaa waana dowladda hadda qaabka diblomaasiyadeed kaga reesay Itoobiya welina way soo taagan tahay, laakiin Abiy Ahmed ciidamo hadoo diyaariyay oo leeyahay waxaan ku gelinayaa gudaha Somaliland waxa ay soo kordhi karaan ma garan karno maadaama xeebaha Soomaaliya tegideeda ay aad u adag tahay asgar kamid ah dowladda Itoobiya gudaha Soomaaliya aysan gali karin. Arrintaasna noqon karto dhibaato iyo dagaal iyo burbur soo gaaray Itoobiya sababtoo ah ciidamo waxa jira Soomaaliyeed aad u fara badan oo lagu diyaariyay Saylac kuwaas oo markaas doonaya inay ka hortagaan duulaanka Itoobiya iyo Musabbix maamulkiisa taasoo ka dhigi karto in dagaal aad u weyn dhulkaas uu ka dhaco. waxaan hadda si kala fogaanayo Itoobiya iyo qolooyinkaas dheeraad Somaliland maadaama wixii heshiiska ah u dhaqan galaya. Wararku waxay sheegayaan in tegitaanka Somaliland gudaheeda maadaama ay adkaatay inay rabaan in Musabbix maamulkiisa ay yimaadaan Jigjiga isla markaana halkaasi wafdiga soo gaari doono heshiis ay ku saxiixan doonaan kadibna kulan labaad oo dhici doono oo ka dhici doono gudaha Addis Ababa heshiiskan lagu dhameystiri doono. Laakiin arrimahaas oo dhan waxay hortaagan caalamka oo fahmay in Itoobiya dulmi ay ku jirto gardarana ay ku jirto ciidamadan iyo waxaan faraha badan ay diyaarinaysana loo maleemaa in meel gaari doonaan maadaama masaaridu iyo nimanka reer Turkidu ay leeyihiin ma suuragali karto in badda Saylac ay dhulka Soomaaliya la qaato. Ismaaciil Cumar Geelo ciidamo u soo diray asagana dhanka ay lug haye waxay keenaysaa cabsi iyo qalqal weyn ay Itoobiya ku beertay. Soomaalida naftirkeedu hadii xabad ay bilaabato aan la kala joogsan doono meel kasta la saga imaan doono Ras Kamboni ilaa Ras Casir Soomaaliya isaga imaan doonto dagaalku uu qaraaran Itoobiya markaas halkaas ka dhici doono. Ma sahlano in Itoobiya gudaha Soomaaliya soo galashido. waad mahadsantahay gooniyow hadda ma jiro ciidan Soomaaliyeed oo ka socda dowladda federaalka Soomaaliya oo lug haye iyo Saylac ama gobolka Awdal xuduudiisa ilaalinaya oo maanta la isku haleyn karo oo la dhihi karo Itoobiya ciidamada haday galaan way ka hortagayaan. ilaa waxaan haynaa oo kaliya in dhalinyarada gobolkaasi ay sabaabulayaan awood maanta ciidamada Itoobiya ka hortagaysa oo halkaas ku sugan oo si rasmi ah loo ogyahay ma jirto. Somaliland ciidamada lahayd ee dhulkaasi ka talinaysay waxay u gacan hadinaysaa sidii Itoobiya dhulkaas soo galeed. waxa la dhihi karaa weeleen diblomaasiyiintu hadii si dhab ah hadda loo eego Itoobiya ayaa wali xeerinaysa in ayna ku degdegin barnaamijkan oo ciidamada saacad kasta way gali karaan. dowladda Soomaaliya waxa kale ay hayso waxa la leeyahay in ay Turki iyo masaaridu ay u ballan qaadeen inay difaacayaan, laakiin dowladda Soomaaliya ma aragno kumanaan ciidan ah oo maartay leeyahay waxay u diyaarsan yihiin in dhulka difaacaan oo kayd ah oo goobo ka urursan oo hubkooda taangiga iyo cirba diyaarsan yihiin uma jeedno. dowladdu af oo kali ah ayaan ka maqalaa madaxweynuhu hanjabaya iyo golihiisa wasiirada oo dhahaya Itoobiya haday isku daydo tallaabo ayaan ka qaadaynaa, laakiin dadku waxay leeyihiin in dowlado kale la isku haleeyo oo Masar iyo Turkiga ku difaacada waxa ka wanaagsan adigoo one day ku diiwaan geliya 100,000 oo dhalinyaro oo Soomaali ah oo diyaarsan oo kumanaan mushaar ah intii loo diyaariyo loo ballan qaado reerahooda la damaanad qaado dhaqaalahan aadka u badan ee siyaasiyiinta Soomaalidu ay cunayaan ay lunsanayaan in dhalinyaro Soomaali oo dalka difaacda lagu diiwaan geliyo oo la diyaariyo la soo bandhigo muuqaalo cadawga argagax gelinaya yaa ka muhiimsan. dowladda Soomaaliya cunaqabateyn hub Masar waan ogsoonahay December 13keedii sanadkii tagay ayaa laga qaaday. dowladdu deyn baa u furan inay hub casri ah oo ciriga dhulaba ay deyn ku soo qaadato, waxa u furan inay dhaqaale qaadato, waxa u furan in ay wax soo gadato. dowladdu waxa la leeyahay
waxaan afka ahayn male Ethiopia wali wax xeerinayso sidoo horta in Ethiopia wali wax xeerinayso sida uma ka arrintaasi in Ethiopia da wax xeerinayso madaxweynaha Soomaaliya ku sugan Addis Ababa in may hor istaagteen marna may dhahdeen in xoog anaga ku wadanayno iyo waxyaabo kale oo fara badan ka hortag ay ku sameeyeen midowga Afrika oo galo iyo waxyaabihii ay sameeyeen oo qalaasa ah iyo dhibaatadii ay markaas ku diideen shirka urgoleedka igad iyo waxyaabahaas oo markaa fiirsid Ethiopia wax ay xeerinayso malahan laakiin meel ay ciirsatay laadahay ama meel ay madax la gashay laadahay sababtoo ah in ma jirto wax horumar ah oo ay ka sameeyeen inta dadaal ay sameeyeen caalamka inta kala tashadeen codsiyada ay gudbisadeen intiba wax jawaab rasmi oo la siiyay ma jiro marka in qaramada hadii ahlad midowga Afrika iyo European Union ka dhamaantood waxay u sheegeen inay qaldan yihiin dhulka iyo badda ay ku xadgudbeen dhul Soomaaliyeed dadka ay la xaajoonayaan inay yihiin Soomaaliya dad kamid ah laakiin aysan ahayn wadan madax banaan arrintaasna waxay keenaysaa dhibaato wararka qaar waxay sheegayaan in waqti Maxamed Abdullaah Farmaajo ay jirtay heshiis dhexmaray Abiy Ahmed iyo Maxamed Abdullaah Farmaajo kaas oo dhigay in 4 dekedood oo Soomaaliya kamid ah inay maal gashan doonaan hadii markaasi la helo wax dekedaas dhiso in dawladda Itoobiya wax kala soo deegi karto sida Farmaajo afkiisa oo ka sheegaba arrintaas marka Abiy Ahmed wuxuu ka xanaaqay inuu Farmaajo heshiis kula jiro meesha uu ka baxay kadibna wuxuu go'aansaday inuu Soomaaliland ku xarqaladeeyo koonfurta Soomaaliya in Xasan Maxamuud la yiraahdo hadda heshiiska Abiy Ahmed kula jirno Abiy si kala fogaanay markuu soo galay kadibna wuxuu bilaabay in Soomaaliland uu adeegsado burburinta Soomaaliya ama in markaas heshiis beenaad ah uu la galo si markaas isugu dhacyo halkaas ku yimaado ama carqaladeyn uu kaga sameeyo Soomaaliya dhanka ay badaha say lacshido waad maadsantahay goonigow dhanka iyo Ethiopia yaraadina gobolka Oromia waxa ka taagan siyaasad aad u cakiran oo ah maamulka iyo jabhada in la kala saari laayay dawladda Dr. Abiy Ahmed talaabeen waxay qaaday aad u culus golaha wasiirada ayaa isku shaandhayn lagu sameeyay xildhibaanadana saraakiil heer federaal ka shaqeeya oo gobolka Oromia xildhibaano ka ah wasiirana ka ah federaalka ay xasaanada ka qaadeen gobolkaasi waxa la leeyahay wuxuu qarka u saaran yahay inuu gacanta u galo jamhadda oo leh ee dagaalada xoogan kula jirta dawladda Ethiopia waxa la leeyahay madaxweynaha gobolkaasi gabi ahaanba wuxuu ku fashilmay maamulkii deegaankaasi xaaladdu aad bay u adag tahay ra'iisul wasaaraha Ethiopia wuxuu leeyahay haddaan gabi ahaanba maamulka Oromia la kala dirin maamul cusub la dhisin xaaladdu ma sii jirayso Oromiyana si fudud ay jamhadda ugu gacan galaysaa jamhadda ayaana maamulka ilaa madaxweynaha gacanta ku dhigaysa dhawaan waxaa jiray wasiirka nabadda ee dalka Ethiopia oo xildhibaan Oromia ahaa inay magaalada Addis Ababa lagu xiray oo xidhay dawladda federaalka Ethiopia ay xidhay ninkaas oo sheegay heshiiskii oo walaal Tanzania lagu la galay inay dawladda Abiy Ahmed ay ka socon weyd Abiy Ahmedna waa nin nabadeed ahayn oo nin colaadeed yahay Ethiopia wax ragaadiyay inuu isaga ninkaas oo dastuurka Ethiopia uu qorayo nin xasaanad haya oo xildhibaanayna la xiri karin ayaa la xiray dawladda Abiy waxay dhashay xildhibaana ma xasaanadii maalmada shalay ayaa laga qaaday baarlamaanka ayaa ka qaaday golihii wasiirada ayaa la kala diray kuwa muhiim ah ayaa shaqooyinkii laga caydiyay oo loo ballan qaaday inay xabsi galayaan dadku waxay leeyihiin jamhadduba shacabka Oromia ama dawladda Oromia la sheegayo markii laga reebo ninka Shamlis Addis la dhaho inteeda kale waa Oromia oo shacabka Oromada ayaa aqoon-yahankoodii siyaasigooda dhamaantood waxay u gacan hadinayaan xoogagan aad ka hubaysan oo laba mowqif wata oo aad u adag inkastoo mowqifyada oo wali ay ku dhawaaqayso ayna ahayn kuwa Ethiopia midnimada ka turjumaya oo ay yihiin kuwa dhan ka raran waxay leeyihiin oo wali anagu Oromia nala dhaha nimanka Tigrayga ay xaq jirka ee 27 sano dalka Ethiopia haystay annaka ku kacina dhalinyarada Oromia ee Qayrol Hijray ee Jawhar Muhammad Bagala Garaba Hamza Borana ay hogaaminayeen ee horjoogayaasha u ahaa annaga ayaa ku kicinay oo gabi ahaanba Tigray meesha ka saaray haddaan Tigray meesha ka saaray oo awood wadanka ku qabsanay Abiy Ahmed hanbaynin Ethiopia Ahmed hanbaynin walaalow ku dhawaaq way leeyihiin inuu calanka federaalku iyo calanka Oromia in magaalada Addis Ababa magac laga bedelo oo loo bixiyo Finfinne oo luqadda Oromia in maartay dalku uu federalism ku sii shaqeeyo marka ugu dambeysana Oromia go'aan lagu dhawaaqo inay dalka ka go'ayso Abiy Ahmed intaaba uu ka soo horjeesaday inuu luqadii national ka Oromia laga dhigo in calankii Oromia laga dhigo in caasimadii Oromia laga dhigo inta uu ka diiday oo wale oo wuxuu yiri Addis Ababa hansa luqaduna waa axmaarigi ee nimayo Ethiopia aan la noolaano laakiin Oromada dagaalamaysa iyo shacabka Oromada fikrad waxay aaminsan war Tigrayba markay wadanka qabsadeen wadankooda oo kaliya ay dhisayeen Ethiopia kalena way leenayeen wixii Tigray u dan ah un bayna ka shaqeynayeen ayagoo aad u tira yar oo lagu sheegay inay 6 milyan ayna dhannayn Tigraygu ayaa hadana xildhibaanada markii la qaybsanayo heer federaal ay ayagu ay lambarka saddexaad isgeliyeen oo ka dhigeen qoomiyadaha ugu awoodda badan inay ugu tirada badan meesha Tigraygu ayna soo galaynin baa leeyahay qoomiyadii 6 ama 7 adii population ahaan la dhaho dalka Ethiopia xaaladdu aad iyo aad bay u adag tahay Abiy Ahmedna
gobolka Oromiya iyo culays weyn kaga yimid sidoo kale gooniyow dhanka xamaarada hadaan u janjeersano gobolka xamaarada dagaal culus ayaa ka socday la wada ogsoon yahay dagaalkaasi waxa uu dhaxay militariga dalka Itoobiya iyo xogaga Fana ee isbedel doonka ama xogaga xaq jirka ee xamaarisinka aad ku waamsan xamaarnimaduna ay aad ugu fogtay xogagan qudhoodu taageero balaaran ee bulshada ka haystaan waa ka dagaalkoodii la liicin layahay dhul aad u balaaran ayna gacanta ku hayaan gobolka xamaarada markii laga yimaado magaalada Gondar iyo Bahardar inta kale waxa leeyahay gacanta ay ku hayaan inkastoo la libela airportkana ay militariga Itoobiya gacanta ku hayaan si xogaha rasmiga ka imanayaan xaaladda gobolkaasna aad iyo aad buu adag yahay waa gobol weyn oo la dhayalsan karin dawladda Abiina waxa ku keenay baa leeyahay inay xataa barnaamijkii Soomaaliland la galay la fuliyo dagaalkan ayaa mar walba xarkaha soo goosanaya oo ay soo dhawaanayaan caasimadan ay ku soo dhawaanayaan dawladuna la leeyahay war hadaan hadda dagaal kale isku furo dhanka Soomaaliya ama kuwani hal mar ina daba gadiyaan ama gabihaanba xukunka ay la wareegan laakiin si kastoo ay hata korneelka way ka go'an tahay inuu tago badda cas dagaal la ula galo cid kasta oo kaga hortimaada rabitaankiisa dhanka badda si kastoo ay hata Itoobiya way gubanaysaa dagaaladuna aad bay u qaraariyeen Tigray ayaa amar diido weyn kala hor yimid dawladda federaalka Itoobiya way ku sheegeen inay Tigray ay ka weeyeen ama ay ka miisaan culus yihiin inay korneelka shir uu hogaaminayo ama xisbi asagu gacan ku sameystay inay la kulmaan TPLF waxay taagan tahay xisbiga waa xisbi balaaran TPLF la dhaho gobolada dalka Itoobiya dhan ka rijisgaraysan yahay waa xisbi dastuuriya shirweyne qaran markaan qabanayno Itoobiya dhan isku wacayna adin abiyo inta maamushay Itoobiya isku wac labadaasna aad iyo aad bay u kala fogeen ciidanka Tigray waayadii ugu dambeeyay waxay wadeen diyaar garow balaaran geetaajo reeda maalmo ka hor wuxuu sheegay inay diyaariyeen 270,000 oo ciidan gaar ah oo Tigray ay leeyihiin Tigrayna aan lagu soo degdegi karin maalinka dagaalka lagu soo qaadeen bariya maanta ciidanka nagu tirado halkii bay dhantahay inkastoo dhaqaale la'aan aad u baan iyo gaajiye macluul ay gobolkaasi ka taagan tahay haddana nimanka Tigray waa niman xaq jir ah kama tanaasulayaan intuu qof ka nool yahay inay xuquuqdooda ay nin kale u daba fadhiistaan waana sida ay dulmaysiintu sheegayaan waa nimanka laga baqayo inay Abiy Ahmed markale kursi ka tuuraan Itoobiyana ay dagaal galiyaan ama ay gabi ahaanba madax banaani ay ku dhawaaqaan ay dalka Itoobiya ka go'ayaan korneelku awood ma leeyahay inuu TPLF la dagaalamo hadda sababtoo ah TPLF hadda waxa la dhaqaale badan ku bixiyaa si ayna dagaal u soo qaadin isagoo dhaa dibidhis ayaan ku sameynaynaa dhulkii dagaalka ku burburay sida buundooyinkii goobihii caafimaadka waxbarashadii iyo guud ahaanba dadkii sida gaarka loo beegsaday ganacsiyadooda ayaan dibidhis u sameynaynaa Tigray ayaa taasi lagu sameeyaa dhaqaale badan dawladda Itoobiya halkaas ku bixinaysa laakiin Tigray way ka go'an tahay inay mar uun xuquuqdoodii iyo maartay ay ka dhex muuqdaan fagaarayaasha siyaasadda dalka Itoobiya inay dib u soo noqoto waana sugeynaa Tigray iyo Abiy Ahmed meesha ay ku dambeeyaan loolanka weyn ee siyaasadeed ee ka soo socda dalka Itoobiya gooni dib baan kugu soo noqonaya hawada Soomaaliya khalkhal weyn maalmihii ugu dambeeyay soo galay ilaa laga soo bilaabo 11 February bishan aynu ku jiro xaaladdu ma sahlaneyn Somaliland diyaarado badan ayaa la hadashay oo xataa ugu baaqdeen Soomaaliya hawada xirunta ka laabtaan hay'adda dawladda federaalkana ay noo sheegayso in ayadu dalka ka taliso xaaladda lama saadaali karo muuse dagaal yar kuma jiro xagee wax maraya qeyla dhaamay dawladda soo saartay liirmaanta shidow horta arrintan waa la isku haystay muddooyinka soo dhaafay Somaliland oo cabasho gudbisay sheegtay in diyaarada laga celiyay in dhowr mar ay dawladda Soomaaliya ku xadgudubtay laakiin hadda waxaa soo kordhay in dawladda federaalka Soomaaliya cabasho ay soo gaartay gaar ahaan wadanka Israa'iil diyaarad hawada Soomaaliya mareysay in la qalqal galiyo ay sheegtay kadibna dawladda ay ka codsatay inay hubiyaan in qalqalgelintaas meesha ay ka socoto in baaritaan ay sameeyeen waxay sheegeen in dawladda Itoobiya ay qalab u keentay nimanka la yiraahdo reer Somaliland isla markaana musabixi maamulkiisa isticmaalayaan hawada inay qalqalgeliyaan qalqalgelintaasna ayagu markaasi iskood ay u sameeyaan si markaasi dhibaato ay kaga dhacdo ama ayaga dawladda Soomaaliya wada hadashiyo arrintan waxay noqonaysaa in la si kala fogaanayo Somaliland iyo Soomaaliya wada hadal loo qabto si markaasi Abiy Ahmed wuxuu sheegay in isku soo dhawaan doonaan ama hawada markaasi la wada qaybsan doono ama la wada qolo walba ay geeskeeda ka maamuli doonto waa sida fikirka Abiy Ahmed uu ku shubay nimanka reer Somaliland qalabkaasna asaga u keenay sida warka nagu soo gaarayo marka si kala fogaanshaha ay si kordhinaysaa moogiye dawladda
Soomaaliya waxay sheegtay in go'aan rasmi ka saar doonto boqolkiiba boqolna ayada inay safgareyn doonto hawada Soomaaliya in maalmaha soo socdana war lagu farxay in la gaarsiin doono caalamka maadaama Soomaaliya isku dayayso inay qalqal geliso dhamaan wixii lagu heshiiyay waad maasantahay gooni warka gabagabadiisan marayna waxa ugu dambeeyay Soomaaliya siyaasadda cirka isku shareertay Maxamed Laa Farmaajo uu hadlay Sheekh Shariif uu hadlay mucaaradka cirka ay isku shareereen waxa la leeyahay Xasan Maxamed Gabi siyaasaddu waa ku fashilmay meesha dalka laga difaaci lahaa dadka laga midayn lahaa siyaasad dastuur oo la garanaynin bal cid ay dan u tahay ayuu madaxweynuhu ku mashquulsan yahay maxaa arintaas ka jira siyaasaddu waa iska caadi shalay Sheekh Shariif Xasan Sheekh ay qeylnay farmaajo ku qeylnay maantana farmaajo Shariif ay qeylnay Xasan Sheekh ay ku qeylnay marka siyaasaddu waa wareegto maalin banin ayaa lagu dhagan yahay nin kasto kursiga fuulo Cabdullaahi Swadkar wuxuu dhahay markii murtad al dhihi jiray markuu kursiga haystay qof walba dhihi jiray yiri marka waxa maleen jiray murtadkina aniga ahay markaan ka degana Shariif murtad lagu bilaabo yiri marka murtadku waa kursiga aniga horta ma ahayno yiri sasan ku ogaado marka waxa dareemi kartaa in qofka qaldan mar walba leeyahay qaldan waa qof kursi ku fadhiyo shal waxa la farmaajo wax weerar hawada ka soo diyaaradda ku weeraray Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh dhawaato kale u geystay farmaajo waxa weeraray Xasan Cali Khayre iyo Cabdiraxmaan Cabshakuur waxyaabo badan lagu eedeynay maantana waxa leeyahay ragga shalay wax weeraray maanta ayagana aad soo jeedana waxay leeyihiin dawladii kale talisnamay sameysay dastuurkii bedelaysa arrimahaas oo dhan macquul maahan marka waxa u malaysaa ninka siyaasiga mar walba wuxuu cabiraa fikirkiisa wuxuuna ku cabiraa in dadka bulshada Soomaaliyeed ka dhaadhiciyo in xukuumadda markaas joogto ay qaldan tahay marka madaxweynaha Soomaaliya dadaal weyn ay ku jiraan laakiin waxa hadda la isku haysto madaxweynaha lagu dhigay waa in dastuurka la bedelo dastuurka hadii la bedelo waxa arki doontaa in markaas Xasan Maxamuud dhankiisa dan ugu jirto qolooyinkan kalena aysan dan ugu jirin sababta marka Xasan Maxamuud loogu dhigay waa arintaasi siyaasaddan in mar walba la isku dhigdhago wax iska caadi oo wax dhibaato ma lahan shido waad mahadsantahay gooni daawadayaal idinkuna waad mahadsantiin barnaamijka Shiisheer Gareeya meel fog la gaarsiiya intaan barnaamijkan barnaamij labada ku kulmi doono sida ay nabadgeliyo